الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصدق الله العظيم. مدحda dhaqanka Somaliland oo aan oran karo waa labeyntii ugu sareysay ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland halka fadhida madaxda dawladda ee uu barasaabku hogaaminayo aqoonyahanka marti sharafta kale mudaniye marwooyinba assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. حفلة قيمها لها على مسارك عبد العظيم حسن لباح انتي اي حفلة على مسار سواء كنتي وكسر رئيسي وقلنا قيمها بطني وحنوك عي انا وحير كافتيميو مركا اللي يداهدو بيلها جارسو كنتي جماعة هاينا قبيالة ادكينا يا مبارنا يوم لكن وحيوي هبراع تاريخ لأيام فرعية إن لوجادو أما يعني ده قولوا يشوا محنقول هذا أمتا يعني محنقول هذا جيس كان أفريقيا مركز قبل هذا تلك الجمهورية الصومالية بلاه جالسو وكم هو من ليه وقت أنا شقيني هيئة عالمية أو سمين سي هبراعة بشوي كان جيس كأفريقيا أما سوشيال أنثروبولوجيا ayaa waxay ka bilaabay meel la yiraahdo Gursum oo ku taala maxaan raahdaa inta u dhaxaysa kilka shanaad ee Itoobiya iyo kilka Afrika markii halkaa kula kulmay lixda jaanso waxaan ugu tagay albaabka Addis Ababa hadana lixda jaanso waxaan ugu tagay darafka ugu galbeedeeya ee xiga Suudaan ee gobolka Gadarif iyo Kasal xiga baa hadana ugu tagay waxaan ugu tagay gobolka Hawd ama koonfur ugu xiga Itoobiya ee Mooyaale oo ay galayaan gobolka Kenya ee Marala waxaan ogaaday dadka ugu ballaaran ee ugu badan ee afka Oromada ku hadla inay asalkoodu yihiin Soomaali oo ay asalkoodu yihiin Jaarso waxaan arkay inay beelweynta Soomaaliyeed qaybaha ugu mudan ee ugu ballaaran inay yihiin baan halkaa ka ogaaday waxay qayb libaax ku lahaayeen marka taariikhda aan milicsano hogaankii islaamka ee taariikhda togan marka la eego ugu qiimaha badnaa geeska Afrika ee Imaam Axmed Ibrahim Geesi Axmed Gurey waxay qayb libaax ka ahaayeen halgankii dib u xoreynta dalkan Jamhuuriyadda Somaliland waxa laga yaabaa in dadka qaar ay yiraahdaan oo gobolka Soomaalidu ama Jaarso ay sidaa u ballaaratay ee ay Itoobiya oo dhan iyo geeskan Afrika Jamhuuriyadda Somaliland Jamhuuriyadda Djibouti Itoobiya gobolka Kenya ee NFD loo rajay markaan la yiraahdo North Eastern Kenya ilaa Suudaan gobolka ugu ballaaran Soomaalidu waqti hore ayay ballaaratay waqti hore ayay maxaan ku radaa wixii ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya wixii ma la sanaawi Oromo ma badna laakiin waxa badan dadka af Soomaaliga ku hadla dadka af Oromada ku hadla ee asalkoodu Soomaali kuwaasi waa Jaarso weey Soomaalidu waqti hore ayay durugtay oo ay gashay geeska Afrika iyo Afrikada dhexe Afrikada galbeed iyo Afrikada waqooyiba ay gashay wuxuu sheegay in adduunka intiisa kala wuxuu sheegay in saaxiibna in Soomaalidu waa tahriibaysay meel walba maraysa marka Latin America la tago wadanka la yiraahdo Guatemala inay joogaan qoysas badan oo Soomaali ah oo Latin American oo af Soomaaliga garanayay oo asalkoodu samarro loo ka tagay Seyla inay halkaa joogaan oo markay arkaan dad Soomaali ah ay aad soo dhaweeyaan aad yani garasowilna iyo Soomaali kadani waxa kale oo aan ogaaday marka taariikhda la baaro wadanka la yiraahdo Mali caasimadiisa labaad ee Timbuktu ayaa dagaaladii ka dhacay waxa la dumiyay maqaam waa dhisay qarnigii 9aad maqaamka oo aan imika dib loo dhisi karin oo qaybo badan intaabtay maqaamka waxa la yiraahdaa maqaamka Imaam Hussein markii aan taariikhda baaray waxaan ogaaday Imaam Hussein inuu yahay awowgii afraad ee Sheekh Saxaab Soomaalidu mar hore ayay adduunyada gashay Afrika gashay meel walba gashay Jaarso oo ah maxaan ku dhahdaa Soomaalida xuduudaha Soomaalida xuduud ka mid ah oo ka sii badan beelweynta
waxay dadka ugu ballaaran ee gobolada Itoobiya deegaan Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliland Djibouti Soomaaliya iyo Kenya